السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa idaacadda yaab. Idaacadda yaab waxay idin soo gudbinaysaa maanta barnaamij ka sheekeynaya wadciga iyo xaaladda dalka. Aanu ku horreynay waxaana soo gaadhay caawa maqribnimadii iyo muddo ka dambaysay in ay saddex hoobiye ku dhaceen madaxtooyada Soomaaliya. war haddaba tolo waxaan yaa ka dambeeya yaa maamula waa maxay dalkii meeshiiba laga maamulayay dal ay madaafiicdu ku dhacayso ina adeero maxad u maraynaysaa hadde dhulka kale yeelkeedii Soomaali waxaan maqli jiray adooga Allah habarta saare Soomaali qaraxiya dhibaatada iyo Soomalhaadka alla saar ilaahayse isaga tala ku filan ka qaado. haddaba waraysigan ayaanu ka qaadnay dad fara badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxa ay u arkaan qaraxa meesha ka dhacayo. waxa ku horeynaya saaxiibkayn maxaa la yiraahdaa magacaaga saaxiib Malayka ma la yiraahdaa hadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ani waxa la yaabanahay ummadan maxaa markasto qaraxa rafaadka rabshada maxaa u arkay dadkan dad muslimiin ah waaye dhibaatada maxaa u arkay aniga waan garaweysanahaba waan garaweysanahaba kaasina wuxuu ahaa saaxiibkeen Malayka haddana waxaan ugu xigo doonaa dhageysahan oo magaciisa in la yiraahdo aan u malaynayo maadey hadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ummadda Soomaaliyeed anigu waxaan u la yaabanahay dadkan maxaa qaraxa loola eegtay ummadan maxaa markasto qarax maxaa hoobiyaha maxaa ku salada war unuka waaba yaabnabo war unuka masaakiina nahay ilaahina ka baqa waxaan naga daayay waxaan ummadda ka daayay. kaasina waa saaxiibkeena maadey haddana oo Maxamuud ayaa noo hadlaya. walaalayaal waryaada niman yahow anu ku waa yaabnay yaab anu ka aragnay iyo yaabkiis niman yahow horta dhibku maanu ku noo gaariya maxaa ummadan markasta loo rabshaa arayday marag madoobu ha ku dilay war waa halkan dhakada buuran u filaba halka ummadda labay ilmahan dheedad leh jeegada buuran madaye kuwaana ummadilay oo ummadda qaraba ilaahay ha ka qabtee war dadkan waa dad masaakiina waa dad soo hoogay waa dad diiratadu laysay war waxaan idin iri maxaa dadkan lagu arkaday dadkan maxaa lagu arkaday war dadkan xay ku arkeen bal nin ilmihiisa sokor isaga raadsaaya iyo hadii alla ku roon yahay wixii dhalahay cawada cuni lahaayeen oo gurigiisa bil u raadsaaya waxa lagu leeyahay waa meyd waa nin shacab ah wuxuu ku dhinta lama yaqaano heerka dila lama yaqaano war balaayadaanu inta laga soo tuuro waa yaabe hagaag. kaasina wuxuu ahaa oo Maxamuud oo noo hadlayay oo asaguna fikirkiisa ka dhiibanayay oo ay idaacadda yaab waraysi ka soo qaaday. haddana waxaan waraysanaynaa ninka magaciisa la yiraahdo Moogahay. walaalayaal السلام عليكم. walaalayaal dal waxaan wax fayaabi ah maahane maxaa madan lagu arkay maxaa loo burburinayaa maxay galabsadeen wadan maxaa marka qaraxa iyo loola arkaday waa maxay meeshii looga talinayay oo hobyo ku dhacayo waa maxay ummadan shacabkii leeanayo waa maxay markasta madaxdan dhaaranaysa leh dalkan wax ka qabanayna annaga hagaajinayna annaga sida yeelayna annaga wuxuu tarayna waan waxba ka soo naas cadaanayna waxa dhami ay naqanayaan
xamar xagay loo taagay yaa war waxaan inagu maanaan garan waxaan waxa weeye waxaan waxa ka dambeeya shisheeyaan malaynaya shisheeyaan ka dambeeya malaynaya marka walaalayaal anu waxaan ku talin lahaa dee ummaddu gacmaha hays qabsato oo waxaan ka soo horjeestay waxaan wax lagu raali kara maahe imika miyaan ilaahay ka baqayn waxaan dadka sidan yeelanayaan waxaan ku oranayaa dee walaalayaal ummadda waxaa ka daayay war ilaahayna ka baqa war ummadda ha qarribinina war waxa weeye war walaalayaal waa la isla dhashay war ummadda maxaa sida u yeelaysaan haddaba ummadda real maxay idinka galabsan ummadda realow maxaad ku ataagaysaan ummadda maxay idinka hadlayeen ummadda realow ilaahayna ka baqa oo ilaahayna ka baqa oo haddaad doonaysaan idinku la-asho iyo qarribad iyo balaayo dee duurkaa iyo carrada bannaan idinku isku laaya war waa maxay dee ummaddan masaakiinta maxaad ku laynaysaan haddaba maxay galabsadeen war ka daaya walaalayaal ka daaya ilaahayna ka baqo hagaag walaalayaal moogay hadalkiisana intaa ayuu noogu egyahay afartaa dhegeysti ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waraysigeenna haddaba walaalayaal idinkuna dhegeystayaal waad noo soo gudbin kartaan ra'yigiinna dadkanow waxaa la yidhi idaacaddanada horta magaceeda waxaa la yidhahdaa yaab nin baa rati ku haysayo wuxuu yidhi adaaba yaabi doonee waa se yeyga ku yaal haddaba soomaaliyay adigaaba yaabi doonee waa se qaraxa ku yaal intaa ayay noogu eg tahay idaacaddeenii waa inoo kulantay dambo iyo barnaamij xiise leh